aanu ka jawaabnay runtii xanuunka shubanbiyoodka oo magaalada ku soo batay inaanu de ka shirnay shalay kalfadhigeedii caadiga ahaa dabeetana go'aamo ka soo saaray go'aamadii bay ka mid ahayd inaanu xildhibaanada golaha deegaanku aanu qaybino afarta waxaad soo qaybino xildhibaanadeeda aniga iyo xildhibaan Kaysa Axmed Raage iyo xildhibaan Axmed Cabdi Dhibeel aanu ka mid nahay saddexda xildhibaan waxa aan naloo xil saaray xaafadda Maxamed Cali oo hadda ku suganay saddexdii xildhibaanba waxaa nagu weheliya runtii hawlwadeedii ee dowladda hoose iyo gudoomiyaha xaafadda Maxamed Cali Xasan hawsheedii saakaanu bilownay kormeer baanu bilownay wixii aanu cagaf gelinay waanu gelinay wixii aanu runtii aanu qoranaynay u baahnaa in laga qabto waanu qorannay laba tiim baanu ahayn runtii xildhibaanada iyo way ka warrami doonaan iyo gudoomiyuhuba marka waxaa keliya un aanu doonaynaa inaanu waxaanu si gaara annagu wuxuu xilsaaranay xaafadda Maxamed Cali marka waxaanu sheegaynaa dadweynaha xaafadda Maxamed Cali horta marka hore inay nala shaqeeyaan xildhibaanadeeda ku qoran xaafadda Maxamed Cali aniga oo Mubaarak Yuusuf Cilmiya bidhi iyo xildhibaan Kayse Cabdi Raage iyo xildhibaan Axmed Cabdi Dhibeel saddexda xildhibaan runtii waan u mahadnaqaynaa ilaa baa mahadla gudoomiyaha xaafadda Maxamed Cali oo si runtii fiican noola shaqeeyo oo ilaa saaka nala socday oo si haglaan noola shaqeeyay iyo tiimka kale hawlwadeed noola shaqeeyay dowladda hoose oo mahadnaqaynaa iyagana waan wadi doonaa insha Allah ilaa inta ay xanuunkan aanu joojinayno ilaahay wax joojin kara inaan halkiisa ku joojino wuxuu baan doonayaa inaan dadka aan u sheegno xaafadda Maxamed Cali iyo guud ahaanba degmada Burco oo runtii inay nala shaqeeyaan oo xildhibaanada dhammaantood la shaqeeyaan oo wada jir aynu uga wada shaqeyno haddii shacabka tahay haddii wasaaradda caafimaadka tahayba sidii loo joojin lahaa keliya wuxuun baa la doonaya nadaafadda magaalada in la ilaaliyo qof waliba isagoo inuu nadaafadda aanu la sugin cid kale uu nadaafadda guriga hortiisa hagaajiso maaragtay biyo nadiif oo cabo biyo uu faraxasho mar walba cuntada si fiican la isaga kariyo oo maaragtay cunto karsan oo fiican la cuno khudaartan la isaga maydho muhiimaddu waa caafimaadka waxa weeye nadaafadda marka nadaafadda la iska ilaaliyo waxaan runtii aan doonaynaa halkan fariin uga daraynaa in cid kasta oo aragta cid ay maaragtay xanuunkaa shubanku hayo ama ciddii nadaafad darro soo aragta ama ciddii aragta meel xashiish yaalo hala soo xidhiidho xildhibaanadeedan iyo gudoomiyaha xaafadda Maxamed Cali Xasan iyo saddexdeedan xildhibaan hala soo xidhiidheen lambaradaan idin sheegaynaa halkan idinka sheegaynaa lambarkayga waa 4240409 Kaysa Cabdi Raagana waa 4438585 Axmed Cabdi xildhibaan Axmed Cabdi Dhibeelna waxa weeye 2435201 Xasanna lambarkiisu waxa weeyaan waa 2431357 marka lambaradaas la soo xidhiidhi doontaan waxa halkan runtii door weyn ka qaatay oo hogaaminta in shubankan laga hortago oo aanu ku shaqeynaynaa siyaasaddiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo cafis u fidiyey 87 maxbuus oo xukunaa oo jeelka Burco ku jira ayuu cafis u fidiyey madaxweynuhu runtii waa tallaabo aad iyo aad fiican waa tallaabo qof hogaamiya runtii lagu garto runtii madaxweynaha waa u ducaynaa ilaa cibrigiisa daayo waa u ducaynaynaa runtii inuu runtii ka danqaday shubanbiyoodka maadaama isagu madaxweynaha dalka oo isagu hormuud noogu yahay oo isagu cafis u bixiyay maxaabiistii ku jirtay jeelka Burco markii qaar ka midna ay dhinteen qaarna uu xanuunkii gaaray inuu cafis u bixiyay in ka badan 90 marka madaxweynaha waa uga mahadnaqaynaa runtii iyo dawladdaba inay iyaga laftoodu si hagarnaan oo la shaqeeyeen oo aanay waxba ka hagran oo ay runtii soo gurmadeen oo ay nala joogaan aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa kolleyba de way jiraan mas-uuliyiin iyagu shaqadooda gaabis ka noqday way jiraan oo horeba u sheegay laakiin waxaan leenahay dawladdu si fiican bay runtii uga qayb qaatay waad aragteen madaxweynihii dalku inuu anagii xildhibaanadu aanu wadno ee xaafadda Maxamed Cali waxa weeyaan inaanu dadweynaha ku baraarujino sidii ay nadaafadda ay u ilaalin lahaayeen oo ay u soo sheegi lahaayeen qofkii xanuunku ku dhacay si aanu dadka kale aanu inooga gaadhin ee halkiisa haddayba ku rooyahay markiiba goobaha degdega caafimaadka loola soo cararo taa dadweynaha ku boorinaynaa waxa kale shaqadayadu ay tahay in goobaha biyuhu ay fadhiyaan aanu wax ka qabanno aanu buuxino goob kastoo xashiishaalno shaqada aan muhiimka ah aanu maanta aanu wadnaa waa taa waxaanaanu leeyahay dadweynuhu caafimaadkooda
waxa weeyaan ka shaqeeyeen oo iskaga iyo haddii bakuuro nadaafadda ha ilaaliyeen halkii ay waxyaalina xashiishaano ha noo soo sheegeen miyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xoogayaha maamulkayga fulinta ayaguna si wanaagsan hawsha noogala shaqaynaya waxaanu leenahay si waan isku wada haysanaa xildhibaanadii iyo fulintayadiiba sidaad ogtihiinba waa annagii go'aamo shalayta soo saarnay golaha deegaanku markii kalfadhigiisii caadiga ahaa uu fadhiistay kulanka iyagan maanta ee aanu halkan ku qabanaynaana wuxuu ku daba socdaa unkii oo fulintiisii baanu ku guda jirnaa waxaanu nahay xildhibaanada halkan ka hadlay labada ahaa iga horreeyey bidhi iyo kayse iyo anigu iyo howlwadeennadan kale tiimkan dowladda hoose ee hayjiinta caafimaadka guddoomiyihii xaafadda waxaanu iska kaashanaynaa waxa weeyaan xaafadda maxamed cali iyo sidii aanu uga wacyigelin lahayn sidii aanu dhulka biyuhu fadhiyaan maaragtay aanu uga saari lahayn sidaan dadka ugu sheegi lahayn maaragtay waxa ay u baahan yihiin iyo waxa lagaga hortagi karo xanuunadan iyaga runtii wax badan baanu ilaa saa ka qabannay wax badanna way hadhsan yihiin oo waanu qabanaynaa insha allahu wayna socon doontaa howl maalmeedka iyaga mid socda buu noqon doonaa mid aanu dadka wada xidhiidhno oo aanu ku dhex wareegno ayuu noqon doonaa haddii ilaahay ka dhigo dadka buka farriintaanu faraynaa waxa weeye ee guryaha maaragtay ku haysta inay nala soo socodsiiyaan ambalaasyadii baa noo diyaara baabuurtayadii baa diyaara intaba waxaanu maaragtay ugu talagelaynaa inaanu goobihii loogu talagalay karatiinka aanu geyno dadka lagu karantiinimaynaya inaanu geyno oo halkaasi lagu soo daweeyo intaad celcelinayso ee aad farmaysiga iyo guriga iyo meelahan iyo waxan aad ku wareegayso waxaa laga yaabaa qofku inuu sii daciifo oo fooqbaxo waxaad la gaadhi kartaan waxa weeyaan sida naloo sheegay oo aarista iyo waxyaabo fudud liimaha iyo dee waxa inta emergency-ga la sii qaban karo laakiin sida ugu horraysa waa in degdeg loo geeyo goobihii caafimaadka annaguna sidaasaanu diyaar u nahay tiimamka iyagoo dhanina diyaar u yihiin goob kastana way geli doonaan shaqaalaha hayjiintu muqaaxiyahay gelayaan hudheelladay gelayaan goobihii sariibadaha bay gelayaan waxa weeyaan wax alla wixii ay qoonsadaanna awood waxay u haystaan inay xidhaan oo ka xidhaan ciddii ay ku arkaan maaragtay hayjiintoodu ay liidato inay ka xidhaan bay awood u haystaan sidaa waa inaad kula socotaan haddii ilaahay ka dhigo waxaanu maaragtay dadka dhammaan la socodsiinaynaa waxa weeye hooyooyinka gaar ahaan iyagaa guryaha inoo qaabilsan inay nadaafadda guriga ayaa maaragtay in lagu dadaalo ay tahay waxaad isticmaali kartaan dhiitool baad isticmaali kartaan waxaad isticmaali kartaan jaafeer baad isticmaali kartaan kaloriin baad isticmaali kartaan waxa weeyaan suuliyada maaragtay sidii laysaga hagaajin lahaa meel kasta albaabada guriga dadku waxay sameeyaan oo caadiyan u noqotay marka la yidhaahdo qof baa buka ama qof baa halkaa ku liita inay dhammaan isku shubaan oo wada tagaan oo dabeetana fayraskii ka soo qaadaan fayraskii ay ka soo qaadaan dabeetana gurigoodii ku soo xareeyaan iska yareeya booqashada goobaha karatiinka iyo goobaha kale ee maaragtay dadka buka ay joogaanba iska yareeya ilaahay baa wax shaafiya ilaahay baa wax daweeya isagaynu ka baryaynaa ilaahay idinkiisa aad iyo aad baanu heegan u nahay waxaanu maaragtay iskaashi ayaynu doonaynaa buuxa weynaha sharafta leh waxaan ka codsanayaa ilaahay abaartii waynaga dulqaaday inaynu ilaahay ka barino inuu cudurkana inaga dulqaado siduu abaartii inooga dulyaan yiqiintu inaga xumaan ilaahay aan barino ilaahay aan isku xidhno dadaalla aan samayno dadaal waxaynu ka samaynaynaa guryaha hortooda iyo gudahooda iyo waddooyinkan aynu xalka aynu guryaha ka soo xaadhnay ku saydhinno ee uu ka dhalanayo dhasiisku ka dhalanayo ee haddana dadkii iyo carruurtii ay fadhiisanayaan ee qaar lagaba yaabay inay ciiddii cunaan nidaamka aan marka hore guriga ka bilownoo ka ilaalinno hooyadu ha ilaaliso ubadka ha ilaaliso guriga hortiisa ha ilaaliso nadaafadda ha ilaaliso raashinka ha ilaaliso ubadka nadaafaddiisa ha ilaaliso markaa arrintu waxaa laga yaabaa markaynu intaa iyo ilaahbari isku darno inaynu gaadhno wixii aynu doonaynay inaynu gaadhnaabaa la arkaa aan dadaal samayno annagu kormeer baannu samaynay annaga iyo xildhibaanada iyo tiimkan hayjiintu waxyaalihii aannu soo aragnay waannu sidannaa waana ka hawlgelaynaa haddii alla idmo cagafyadii iyo gaadiidkiiba waa gelinaynaa iyo buuxintii ciidda halkaa waannu ka soo diyaargarownay gacma wadajir bay wax ku qabtaan aan dhammaan yaan cid wax laga sugin ilaahayna wax laga sugo xoogeennana aan isticmaalno hantideennana aan isticmaalno aan dadaallo wasalaamu calaykum